asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtaag soo dhowaada waa qaybtii labaad ee dagaalka Oktoobar. Inta aan dagaal la qaadin waa inuu jenaraal shaadani u diyaargarowgiisa xoojiyaa si uu biyaateedka uga tallaabo. Sidoo kale waa inuu macluumaad badan u helaa si uu u dumdumiyo xadka Barlev ee Israa'iil. Xadkani waxa uu cibaarad ka yahay silsilad xiriir ah oo difaaca lagaga jiro ka bilaabanayana marinka Suways kiiloomitirna kala fog dhufaysyadaas. Masar waa inay jeexdaa dhufaysyadaas, haddii kale qorshihii la dejinaya ayaa fashilmaya. Difaacyada dambaydiisa Israa'iil waxay cindiga gelisay aamin inay tahay oo cidna walwal kuma hayo xanaaqa saadaad, waayo Masar kuma dhacdo inay weerar soo qaado kadib dharbaaxyihii 67. waa fikirka Israa'iil wax ka bedelay dagaalkii 6 bari. habfikirkeena waxaa damiirkeena ku samaysmay wadaninimo. guushaas weyn kadibna waxay noqotay siyaasadda isgaarsiintii inay carabta ku eegayaan indhaha in carabtu aysan awood u lahayn inay iska dhiciyaan Israa'iil. carabtuna ugaal bay u lahaayeen arrinkaas lagu dhaleecaynayo. فبعد هذا النجاح الكبير راحت السياسات وأجهزة الاستخبارات كلها تنظر إلى العرب على أنهم عاجزون عن مواجهتنا. وهم مدركون تماما لهذا الواقع. waxaa muuqadkii koowaad ee ah in laga dayan yeesho dhulalka ay qabsatay Israa'iil oo ah kadib dhibintii ay ka heleen dagaalkii 67. waxay soo celiyeen Israa'iiliintii, waxa ay ugu magacdareen dhulkoodii iyo taariikhdoodii, waxayna aaminsanaayeen inay jidho Israa'iisha weyn, Israa'iil al-Kubra. lanwaaya waxaa Masar dafciyey awood ka weyn, waxaa noo ahaatay maciishad ballaaran iyo cudurdaara ereybixintaan isticmaalay. kani waa dhabta, waxaa ballaartay maciishadeennii. waa ereybixin yaab leh, balse Israa'iil waxay mudan tahay wax walba oo hagaagsan. معيشة لدينا يا لها من عبارة رهيبة، لكن إسرائيل تستحق كل ما هو أفضل. Israa'iil loo weeraro, saadaad waa inuu haystaa saanad dagaal oo dhammaystiran oo hub noocyadiisa iyo dabaabadihiisa dagaal isugu jira. keliya Leonid Brezhnev ayaa awooday inuu saanadaas siiyo saadaad. sidaas ay tahay ayay booqashada saadaad ee Ruushka ay ahmiyad weyn u leedahay. marinka loo sii maro Kremlin waxaa saadaad uu ka fikirayaa, waa uu ogyahay in heshiiska hubka uu falcelin keenayo. muddo 10 sano ayay Moscow u arkaysay Masar inay tahay warqadda ay ku leedahay bariga dhexe ee loolanka ay kula jidho Maraykanka, saaxiibka u huridda badan Israa'iil. oo Masar waxa ay difaac ka helaysay Soofiyeedka, waxa ay nahmisay inay weerar ku qaado Israa'iil. balse saadaad waxa uu maskaxda ku haystaa la'aanta Brezhnev inaysan waxba hagaagayn. arrintu waa helitaanka saanad dagaal, waana wax fudud. waxaa kulminayay Masar iyo midowga Soofiyeedka. waa meeqa tirada hubka ay Ruushku ayna siinayaan si aan guul uga keenno dagaalkaas. waxaa caddayaa ah in saadaad uu diyaargaroobayo dagaal, waxauna doonayaa inay midowga Soofiyeed u dhiibaan nooc cusub oo hubka ah. sidaas ay tahay waa ku xeel dheeraaday saadaad dalabaadkiisii, وبذلك يكون يبالغ في طلباته. waxaa bilowday mu'tamarkiisii dhaqsiya, waxaana soo baxay arrimo kale. waxaa soo fool saaray Brezhnev inuu waajaho Maraykan, una sababtay hadafyada saadaad. waad helaysaa hubka aad dalbatay, balse waxa ku tacalluqa diyaaradda miiga
keliya midowda Sofiyeed ayaa ogolaan kara adeegsigeeda. Uma bannaana cidna inay go'aan ka qaadato arrimaha Masar. Aniga oo madaxweynaha Masar ah, dooni maya diyaaraddiina. Waa warcelintii Saadaad oo fara badan ayaa ku soo laabtay Masar, iyagoo lagu ballamay waqtiga hubka la soo dhiibayo. Waxaa ku xidhan Brezhnev mustaqbalka Masar. Waa uu ogyahay Saadaad arrinkaas. Waxa uuna u dhexeeyey laba gebid dhexdood, yeelid ama diidmo. waxaa imaan doonta maalin uu xiriirku u goyn doono. حاقداً عاد السادات إلى القاهرة. عبر تحكمه بوقت تسليم الأسلحة وتحديد نوعها، يتحكم بريجنيف بمستقبل مصر. يدرك السادات هذا ويرفضه، لربما سيحين يوم يتخلون فيه عن الروس. تذهب جولدا مائير على وجه السرعة إلى المقر الرئيسي. waxa ay u degdegaysaa Golda Meir maqarka ra'iisaha ay ka xukunto Israa'iil. Waxa ay heshay warbixin khatar ah ay u soo gudbiyeen sirdoonka Masar jooga, kana ay soo dhiraandhiriyeen xogta rag laba kaarlayaal oo xukuumadda Saadaad ka tirsan. Waxa aan helnay warbixin ah wixii dhex maray Saadaad iyo Brezhnev, iyadoo ay ku qoran tahay warbixinta Saadaad oo oranaya: Brezhnev waxaan doonayaa inaan weerar ku qaado Israa'iil, dib noo soo celiyo Siinaa, balse ma lihi awood aan ficilka ku sameeyo anoona isticmaalin diyaaradaha cirka ee wax rusheeya. Sidaa oo ay tahay, waxaan idinka codsanayaa inaad isiisaan diyaarado ka heer sareeya diyaaradaha Israa'iil. ma aysan yaabin Golda ee ogaal bay u lahayd Saadaad inuu dagaal isku diyaarinayo. Jiha waxaan ka helaynay warbixinahaas noogu muuqday dhab. Jiha kalena waxaan ka helaynay khidadaha ay dejinayaan iyo tallaabooyinka xukuumadda Saadaad. Arrinku waa inoo cad yahay oo inay Masar khidadaynayso qorshe ay marinka kaga soo gudubto iyo tallaabo ay horu soo qaado ilaa waddooyinka buuraha Siinaa ee dhaca 40 ilaa 50 kiiloomitir. waana qaar ka mid ah waxa isla qorsheeyeen Saadaad iyo Brezhnev. القناة والتقدم حتى ممرات سيناء الجبلية الواقعة على بعد 40 أو 50 كيلومترا من القناة. تتطابق هذه الخطط ووثيقة السادات وبريجنيف. إسرائيل ونظام موسعة كل حجرة نظام كسادات وسدد من أي وحول الشقينية رجل وكار ليالا وحقا وسوقت بي إسرائيل وعن لي هذا نينك وعن سرقاس أشرف مروان واكاس هالكاس تاغن مدارك القاهرة اللي هو سادات كيف من موسكو. قصة أشرف مروان يا إسرائيل وحي بلاوتي 3 سنة كهور صارت كي لحدني سغالكي المعلمة كمدة نين أيا وحوي من سفارة دين لندن وحن كان ليا طبعا مروان وحاون عصدين نقابله شخصي موساد كترسن سيدا أكتين وحاسو جيرينا إنان سردونا أنه واديكسو نقاب كاس قالب ركا متضوعين تاوية وطلب أن يقابل شخصا من الموساد. فكما تعلمون من التقليدي استخدام عملاء بهذه الطريقة، إذ غالبا ما يكونون متطوعين. سردونكاس guursigiisii gabadhii u dhalay Jamaal Cabdinaasir waxa uu soo galay Ashraf Marwaan garoonka siyaasadda iyo xukunka Masar. Amintaan waxa uu yahay taliyaha ugu dhow ee Saadaad. ربين من السادات. waxaan fahnay ayaa ah inuu doonayo inuu si cad ula xiriiro madaxweynaha Muusaad. waa nin darajooyin jeneraal haysta. dabcan waa aniga ninka uu doonayay. waxaan haleelsaday in haddii aan garto qaabka ula dhaqmo ninkan, waxaan awoodayaa inaan ka helo xogo muhiim ah isuguna jir mid siyaasi iyo mid istiraatiiji ah. waxa uu Ashraf Marwaan ilaa lagu kalsoon yahay qaareen looga imaan jiray. noloma uusan imaan jirin war uu ka maqlay axad ama askari, balse waxa uu noola imaan jiray warar waaweyn sida wararka uu ka maqlo madaxweynaha isagoo alla taliyihiisii. waxa uu naga mudnaa Ashraf jayse weyn. ما لا، بل كان هو على قمة الهرم. كان الجائزة الكبرى بالنسبة إلينا.
xilligan la joogo cidna israa'iil oo la soo weeraro ka baqan mayso waayo waxay isku qanciyeen maadaama uusan brejnev uusan saadaad hub siinayn wax laga walwala ma jidho Russia. It is the first time the Kremlin has ever opened its doors for a president of the United States. But in meetings with top Soviet leaders, the president seeks and gets concrete results. This is the signing of the Strategic Arms Limitation Treaty, a giant step for peace. qaahira saadaad waa uu caraysan yahay ma aysan fulin brejnev iyo nixon arrintiisiina waxa uu go'aansaday inuu dhaqaaqo waxa uu wax ka weydiiyey safiirkii ruushka ee qaahira joogay ee فلاديمير waxaa kulmiyey maraykan iyo ruush. في 8 يوليو تلقى من فلاديمير فينوغرادوف السفير السوفيتي في القاهرة تقريرا حول القمة التي جمعت هاتين القوتين العظميين. waxa uu eegay safiirkii Sofiyeetiga waxa uu ku yiri saadaa safiirkii waxaad haysataan isbuuc ama 2 isbuuc oo aad dalka kaga baxdaan. فلاديمير ayaa safaradii ruushka ku soo laabtay waxa uu ii sheegay wixii dhacay saadaad mas-uuliyadda ka timaata isaga ayaa laabtoo dhiganaya iyadoo la joogo maalmo waxa uu iclaamiyey saadaad qaraarkiisii iyagoo xubnaha qaar ay uga baqayaan ciqaabaha ku dhici kara qaadasho go'aamo caynkaan oo kale wakhtigaas aad ayuu ii wareeriyey go'aankaas waxa uuna na dhex dhigay darbi weyn innaga iyo Sofiyeetka waxa ay ka dhigtay hubkii dagaalka ee aan raadinaynay mid gaabis ku jira لحرب وشنها. ما هي muddo 2 isbuuca waxaa laga eriyey Masar wax ka badan 80,000 oo mustashaar Sofiyeeti ah iyadoo ay saa tahay Moscow xiriirka uma jarin saadaad si aysan u marin dowladaha carabta dhinaca Maraykanka iyadoo si aan dheelitir u samayn waxa dadaal gelinay xalinta wax ku tacalluqa mas'aladan in Masar xiriirka aan la lahayn si xoojino waxaan u malaynayaa saadaad inuu saray Sofiyeetka waxa uu dhigay dabin waxa uu xafiday xiriirka ay lahaayeen waxa uu ka yoobayay in Masar ay tahay mid aan awood ballaaran lahayn waxa uu ahaa mid cadaadiyay Sofiyeetka si ay isagu hubku ka dalbaday oo siiya نجح السادات في تسديد ضربة معلم. وهو ku guulaystay saadaad inuu liishka la helo macalinka Brejnev waxay Moscow ahaatay saadaad caawisa balse aqalka cad waxaa ka jira talow Henry Kissinger oo ah la taliya arrimaha amniga ee madaxweynaha Maraykanka waxa uu kula taliyay madaxweynihii Nixon in laga eriyo safiirka Sofiyeetka ee Maraykanka degan asxaabta qaybta halkan inoo joogto inoo qaybta 3 wassalaamu calaykum